sheekhu waxay leedahay wadani maanta waxaa hadashay bay leedahay Saadiya Salaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya waxayna ka hadashay jinsiga iyo kufsiga. المهم waxay leedahay su'aasha waxay leedahay shariicadu maxay ka qabtaa kufsiga iyo jinsiga. shariicadu iyo diinteenu horta waa diin dhammaystiran ma dhimana اليوم أكملت لكم دينكم ودين دميسترن هذا دميسترن تهينا وحاكو دميسترن وحكستو بني آدم كوباهي وحكستو يما دحل كيسين وكوشيرا هدي يورد مسلمات الله كفصدو وحوق له كفصدو وحي لغا سمين لها هي عقوبة دي دين تيكو تعالى haddii dhibaato kaleeto uu ruux sameeyo ciqaabtiisii diintay ku taallaa quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxba kamayna tagin ruuxu hadduu muslim yahayna islaamnimada waxaa asal ka ah ruuxu markuu tawxiidsado in uu ogolaado wixii ilaahay xaggiisa ka soo tegay iyo wuxuu nabigu jideeyay sallallahu alayhi wasallam hadduu ashahaadanayo laakiin wixii ilaahay soo dejiyay uusan ogolayn wixii nabi maxamed la yimid iyo sharcigiisiina uusan ogolayn ashahaadadu waxba u tari mayso salaaduna waxba u tari mayso diin uu yaqaanana waxba u tari mayso asalka islaamku waxa weeyaan al-istislaamu lillah inaad ilaahay u hoggaansanto sharcigiisana isu dhiibto ma aha afka wax laga yiraahdo iyo kalimaad afka laga akhriyo ma aha islaamku waa diin qalbigana gasha carabkana lagaga dhawaaqo xubnuhuna fuliyaan duuduub u qaata marka yaa ayuha alladina aamanu dkhuluu fi silmi kaafa dadkii muuminiinta ahayow idinkoo idil islaam oo diinta wada gala ma jirto wax la yiraahdo noloshayda qaybna waa islaam qaybna banaanka islaamnimada ka joogta ilaahay waa diiday udkhulu fi silmi kaafa diinta dhammaystiran wada qaata haddii kaleeto waxaad sheeganaysa been buu noqonaya taa waa qodob mabda asaasi ah qodobka labaad hadduu kufsi dhaco shariicadeennu waxay ku xallisay u fiirsada oo gabadha la kufsado ayadu dambi ma laha ayadu dambi ma leh bal xuquuq bay yeelanayaan ninka kufsaday saddex mid baa la marinaa hadduu hub u qaatay oo gabadha xoog ku kufsaday oo hub u isticmaalay xukunkiisu sida culimada qaarkood qabaan waa in la dilo haddii uusan hub u qaadanin oo ku kufsaninna hadduu nin xaas hore guursada yahayna waa in dhagax lagu dilo hadduu haweenay hore uusan soo marin oo guur hore soo marinna inta muslimiinta la soo hor istaajiyo 100 jeedal in lagu dhufto waay xabsina waliba loogu daro yaa qabta sida diinteena qabta soo xuquuq adag ma oo dumarkii iyo gabadhii iyo sharaftoodii ilaalin lahayd ma gabdhahani maxay wataan marka gabdhahan waayahan jaqjaqdoodu badatay ee gaalada u shaqeynaya ee kunturaadda soo qaatay ee waxoogaa dhaqaalaha bislaysanaya xogaa dhaqaalaha bay bislaysanayaan gabdhahaasi maxay rabaan barnaamijka lagu leeyahay kufsi baa laga hadlayaa kufsi ma aha waa sharci la yiraahdo sharciga jinsiga oo dhammaystiran waaye akhriya haddaad Soomaaliga taqaanaa sharcigaasi waa sharci dhammaystiran waxa laga soo minguuriyay wadamada gaalada waxauna xalaalaynayaa inay raggu iskuursan karaan wuxuu banaynayaa inay dumarku ay reer ahaan isula degi karaan oo iskuursan karaan wuxuu banaynayaa ninka iyo xaaskiisu hadday isku dhacaan oo tiraahdo wuu ikufsaday in ninka la maxkamadayn oo la ciqaabi waana arinta Yurub ku burburtay waay wuxuu jidaynayaa akhlaaq xumo oo dhan buu jidaynayaa barnaamijkan la idin leeyahay muxuu ahay gabdhaha kufsigooda lala dagaalamaya
waxaa lagu wataa lagu marsiisanaya mashruuc weyn oo ballaaran oo la doonayo intaasoo qarni oo soo socoto ummadda akhlaaqdeeda in lagu burburiyo gabdhahan qaylqayliyaya iyo dumarkanna ee marna isqaawinaya marna ummadda la soo histaagaya marna hanjabahayo oo muxuu ahay marna aflagaadada wadaay wax kale ma wadaan ee barnaamijkaasay rabaan in ay marsiiyaan ujeeddadu intaas waay ujeeddada haddaad fahanto marka waxaad ku garan kartaan marka la yidhaahdo war ninka gabadha kufsaday 100 jeedar ha lagu dhufto waxay leeyihiin maya ya xuquuqda bini aadamka meel kaga dhicino ha jeedlina طيب كان gabadha kufsada aan dillo qoorta aan ka jarro maya xuquuq bini aadam way hadilina طيب way dhagaxa lagu dilo hore buu guursado zinu galay maya dhagax bini aadam lagu ma dilo dhagaxa ku dilina waa gabadhii shalay minbarka la taagnay xuquuqda gabdhaha hal ilaaliyo ba maanta waxay leedahay dhanka kale intay ka soo wareegto xuquuq bini aadam way ninkii gabadha kufsada yaa dhibka loo geysan oo maxaan ku sameeynaa sharciga ay wataan waxa ku yaala ma taqaana sharciga wataa waxa ku yaala ninkii kufsi sameeya intay 10 sano miya u badan tahay miya 5 sano u yartahay 25 sanana u badan tahay hal la xidho kadibna hal la sii daayo ilaahay baan idin ku dhaariyay ma xukunka shariicada wax soo afjaraya mise xeerkan gaalada ay ka keeneen ba soo afjaraya bal isweydiiya keeba adag oo arinta soo afjaray kii shariicada marka ma rabaan kan aan waxba daaweynaynin bay rabaan laana xoolaa lagu soo qaatay wax kale ma ah mid kalena waa idin sheegaya xeerkani wadamada uu ka jiro Mareykanka iyo reer galbeedka kufsigu miyuu ka dhamaaday dadkii ka yimid Yurub iyo Mareykanka iyo meesha ugu kufsi badan adduunka waa Mareykan iyo Yurub waay maaldood waxaan aqrinay report sheegaya ciidamada Mareykanka kaliya waa ciidamada Mareykanka kaliya hal sano waxa la kufsaday 60,000 oo dumar la kufsaday waa hal hay'ad oo Mareykanka kamid ah taqriiban halkii daqiiqada Mareykanka kufsi baa ka dhacay halkii daqiiqada dumar baa la kufsadaa iska daa Faransiiska iska daa muxuu ahay Jarmalka iska daa Yurub sharcigan ay gabdhuhu la ordayaan ee la muxuu ahay la qarqarayaan dhulkii uu ka yimid buu wax ka qaban waayay oo kufsigii joojin waayay walaalayaalow bal isweydiiya maxay gabdhahan kada tawaalay oo wareeriyay marna isqaawinahaya marna jaqda ku hayo caytamahayo aflagaadada iyo hanjabaadda wada maxay wadaan ma inaga inoo danaynaya ma dalkay u danaynaya ma dadkay u danaynaya ma dumar bay u danaynaya ma idinka dirsaday ya war ma idinka dirsaday idinka idin matalaya nama matashaan dhaha ya meesha waxay la taagan yihiin mashruuca gaalada u marsiisanayaan mashruuc yaani wax xuquuqdii dumarka u taaganahay hal su'aal weydiiyo dumarka idin dirsaday ee xuquuqdooda u taagantiin waa kuwee ya gabdhaha muslimaadka waxaan ma ogola qoys muslimana ma ogola hooyo muslimana wiilkeeda inuu wiil guursado ma ogola gabadheeda inay gabadh guursato ma ogola wax laga yaqyaqsado waaye qashin waaye waxa noocaas oo kale taabaad nagu matashaan oo adeer muxuu ay looga dhigaysaan idin ma matalaan waxaasi marka waxa weeye waa mashruuc socda waa mashruuc la doonayo in la hirgeliyo laakiin waxaan ku kalsoonahay ilaahay fadligii ummadda Soomaaliyeed maanta way baraarugsan tahay aqoon ku filanna way leedahay wayna baraarugsan tahay gabdho noocaas oo kale oo jaahilaada waxba kala garanaynin oo gaala soo adeegsatay inay mashruucna mariyaanna maanta waynu muxuu ahay ka baraarugsannahay waxa ay wataana biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ma socon doono boqol gaal iyo dhaqaalahooda hadday isticmaalaan shalayna way socon weyday oo baarlamaanka diiday maantana socon maayo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waan soo dhaafnay marxaladii gaalo intay dhaqaale yar afka noo mariso nala marsiin lahaa wax dhaqankanaga iyo diintana iyo akhlaaqdana burburinaya Soomaalidu maanta alxamdulillah way soo dhaaftay waxa maanta u taagan oo radinaya waa dumar ay lahaayeen waan matalayna waxa radinaya waa aqoonyahankii waxa radinaya waa muxuu ahay suugaantii iyo raggii gabi jiray
علماء كلية ما وحأتاغني أمدي صومالية دواي بإذن الله تبارك وتعالى أيقو خسار صنبي كدقاق دونان هوشا سينا صحون ما يسو لكن وحان الله يهي سيوة الشيرة هوشا اللوغو هورتوغو سوشيال ميديا هدات كهال ليسان استعمالا وبعض الكاردية وكهورتاغا وسيوال بأولاد دقالما وهوشا سي وحوي وحمل الصحوتين يين صحون إن شاء الله صحون ما يسو بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خير